I'm an entrepreneur, kind of working in the digital space, marketing dhinacaas. Haddii aan rumaynayo dadka jidadka xamar aan ayaanta ku arkay waxay leeyihiin xildhibaannimo baan isku diyaarinaya, but laakiin taasaan rumaynina ma rumaysanaya. So yeah, so I'm the third aspect of that piece. And waxaan jeclaa lahay in maanta sessionkan oo maxaa la fruitful oo qof walba u noqdo, and that we as Somali people can better support each other, inshallah, and increase our knowledge. And Umar Samatter, walaalo soo dhawa. Kusoo dhawa, please introduce yourself, your platform kaaga, and please go ahead walaal. aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin. Soo dhawaada. Aniga magacayga waa Umar Samatter, waxaan ka mid ahay aadii aad wada ogeedeen inta badan barnaamijkii ACG focus badda Soomaaliya waa dhaxalkeena laga doodayo 3 beri. sidoo kale clubkan waxaan ka tirsanahay dowladnimo ku nool. dhammaantiin soo dhawaada oo waa mahadsantiin. Professor Jibril, well, so please introduce yourself, and then Agasim Abdirashid, and then Ambassador Yusuf Akuhele ugu dambeeyna inshallah in terms of introduction. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walaal waad mahadsantihiin dhammaan bahda Buundo kasoo qayb galayaasha Samatter Abdirashid, dhammaan akhyaarta meesha joogto waa idin salaamay. waxaa la dhahaa Jibril Cali Aw Maxamed, waxaan deganahay gobolka Ohio, macallin baan ka ahay jaamacadda Ohio State. arrimaha Soomaaliya iyo Afrika ayaa takhasuskaygu yahay oo aan wax ka baaraa. insha Allah kulay dee arrin masiiri ah oo dalkanaga saameynaysa oo ah arrinta badda ayaa aan isugu nimid. wixii macluumaad ah iyo meesha haatan wax taagan yihiin waxaana la jooga ambassadorka. insha Allah waana isla joognaa. waa mahadsantiin. Agasim Abdirashid, soo dhawa walaal. aad baa mahadsantiin walaal. dhammaantiinba waan salaamayaa. ambassadorka aad baan ugu xiisa qabnaa warkiisa inaan dhegaysano. run ahaantii tacsi xoog leh waa ina gashay. allah u naxariisto madaxweynihii hore. anigu tacsidaasaan ka shaqaynayaa. guud ahaana waa idinla socon doonaa. run ahaantiina aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ambassadorka oo isagoo aad u daalan, shaqo xoog lehna ay u taallo, ogolaaday inuu dhalinyarada Soomaaliyeed la hadlo. soo dhawaada dhammaantiin walaal. Your Excellency, Ambassador Yusuf Garaad, please soo dhawa. master shaqs walaalkay. waxaan rabaa inaan inta ambassadorka soo dhawaanin sidaad ogtihiinba furitaankii barnaamijkeenan waxaa inta badan la wada ogaa oo inta badan Soomaalidu ay maankii maskaxda ku haysay dhinaca dacwadda ACJ nagala dhaxaysa dalka Kenya. ambassador Yusuf Garaad wasiirkeeda hore ee arrimaha dibadda waxa uu ka mid yahay wafdiga dowladda Soomaaliya ku matalaya kiiska dacwadda ee Kenya nagala dhaxaysa. dooda ayuu marti ku yahay. ambassadorka waxaa ogtihiin in uu saray wuxuu jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed inuu ka haqabtiro dhammaan su'aalaha iyo doodaha ay qabaan, laakiin waqtiga oo aad u yar iyo asagoo daalan waxaan samayn doonaa ambassadorka waxaan siin doonaa hadal, kadibna su'aalaha kooban waxaa la qaadi doonaa 5 su'aalood oo kaliya ah. marka furitaanka barnaamijka inta aan gelin walaalahay bridge oo maanta bartooda aan marti ku nahay iyo aniga oo ka socda kooxda dowladnimo ku nool, waxaan idin leenahay dhammaantiin soo dhawaada. waxaan rabaa inaan mataqaanaa martida panelka wasiirkeena hore arrimaha dibadda Yusuf Garaad Cumar, sidoo kale agaasimaha madaxtooyada qaybta warfaafinta Cabdirashiid Xaashi Duqa, iyo Jibril Aw Cali oo ah bare jaamacadda Ohio State University oo sidoo kale wax ka qora arrimaha xiriirka caalamiga ah. waxaan rabaa dhammaan panelka inay soo dhawaadaan. waxaan rabaa marka inaan kelmad furitaanka aan siiyo Cabdirashiid Duqa, kadibna uu warbixin siiyo wasiirka, markaa kadibna ambassadorka
aan markaa kadibna 5 su'aaladood qaadno waa mahadsantihiin walaalahay shaksi mina iyo deeq soo dhawaada waa mahadsantihiin sorry wiiga yar gaay halka ku celi Samatra walaal cabdirashiid ku soo dhaw walaalkay kelmadda furitaanka barnaamijka ka qayb qaadan lahayd mahadsan waay hore deeqaf Afrika iyo Miina iyo dhamaanba asxaabta kale madasha namarti gelisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ee durba ummadda Soomaaliyeed fahanka uga siisay aaladan cusub ee nagu soo birtayna waa waxaaba qurux badan run ahaantii danjire Yusuf Garaad Cumar Axmed waa ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed horena waa wada taqaaneen oo soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda danjirihii hore qaramada midoobay New York inoo fadhiyay waxaa intaas oo dhan ka horeysay oo caan ku yahay waa warfidiyeen caan ah oo soo maamulay hay'adaha ugu waaweyn warbaahinta Soomaaliyeed wuxuu kaloo ka soo shaqeeyay dhinaca gargaarka iyo hay'adaha oo ay ka mid tahay bisha cas waa nin aad loo wada yaqaano hadda wuxuu ku jiraa ergada Soomaaliyeed inagu metelaya maxkamadda ICJ xog badan buu hayaa run ahaantii laakiin ka dawlad ahaan waqtigan ma furna in xogo badan la bixiyo ambassadorku isagoo ixtiraamay dalabkii maanta aan soo jeedinay wuxuu nala ogolaaday inuu si guud inoogu warramo dabadeedna 5 su'aal qaato 5 su'aaloodna waa idiin furan yihiin wixii aad jeceshiin baad weydiinaysaan ee ku saabsan si gaar ah ugu saabsan mawduuca maanta aan halkan isugu nimi difaaca badeena aan ugu jirno khibrada kale iyaguna marti sharafta ah way qaadan doonaan doorkooda marka ambassadorku uu dhamaysto marka ambassadorka barnaamijka shaqada sugaysa isagaan ku soo dhaweyn doonaa marka uu inala hadlo su'aalaha u raaci doono su'aalaha aan israacsano dabadeed isaga noodka qaadanaya si guud marka uga jawaabi doono su'aalaha inta marka u qalanta dulcudeerka aad dooranay ambassador Yusuf Garaad Cumar Axmed fagaaraha adan ku banaynaya oo maasantahay Cabdirashiid waxaan rajaynayaa inaad maqlaysaan si fiican waad maasantiin marka ugu horeysa aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa deeq Aamina Cabdishakuur Cumar Samatar Jibriil Cabdirashiid iyo labadiina platform ee Buundo iyo dawlad ku nool sida aad ii sharafteen iyo sida aad u qaban qaabiseen barnaamijkan iyo sida aad ugu taagan tihiin qadiyadda Soomaaliyeed difaaceeda iyo badda iyo dhulka Soomaaliyeed difaacooda marka runtii waa arrin aad iyo aad ii qiiro gelinaysa dhiirigelina anaga lafteena noo ah tiimkeena halkan jooga ee dawladda Soomaaliya matalaya intaa markaa idhaahdo waxaan rabaa inaan ku bilaabo tacsi aan u jeedinayo madaxweynaheenii hore aan idinka iyo ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynayo geerida madaxweyne Cali Mahdi Maxamed Allah u naxariisto cid waliba waa dhimanaysaa waa hogaamiye dalkeena madax ka ahaa xilli aad iyo aad u adag wuxuuna ahaa nin successful businessman ah oo hanti badan tabcay inkastoo siduu businesska ugu wanaagsanaa oo uu dadka ugu horeeya wadanka uga mid ahaa xagga siyaasadda xaalad xun ay uga soo beegantay oo siyaasadda aanu maaragtay guulo waaweyn oo kasoo hooyo badan aanay jirin laakiin waa marxaladdii wadanku markaa maraya sida ahayd laakiin wuu soo gaarsiiyey intii tabartiisa inuu maaragtay dalku aanu kala tegin oo intii laysku hayn kara laysku hayo marka Allah u naxariisto ayaan leenahay Cali Mahdi Maxamed intaasaan uga gudbayaa tacsida Cabdirashiid iyo tiimka kale madaxtooyada kulay ka shaqeynaya aaska qaran ee loo sameyn doono sida aan filayo marka waxaan rabaa inaan u soo daadego arrintan aad halkan Hague aan u joogno iyo aad nagala hadasheen horta marka koowaad halkan waxaa jooga wafdi uu hogaaminayo ama ergo uu hogaaminayo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha isaga ayaa wafdiga madax u ah waxa wafdiga kamida xeer ilaaliyaha hadda xilka haya iyo xeer ilaaliyihii hore oo isagu wakiil ka ahaa
waxaa halkan goobjoog ku ah wafdiga ka mida danjiraha soomaaliya u fadhiya new york xarunta qaramada midoobay iyo laamaha qaramada midoobey oo dhan oo dabcan maxkamadani ay ka mid tahay waxaa kale oo socda saalixi oo ah nin ku takhasusay xagga maababka iyo sameyntooda iyo tobografiga oo weliba xagga badahana xog dheeraada ka haya waxaa ka mida inahaas ayaa hadda jooga halkan wafdiguna ka kooban yahay waxay ahayd inuu joogo danjirihii hore soomaaliya u fadhiyey brussels isla markaana hadda ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee baydhabo waa cali faqi ilaahay caafimaad ha siiyo wuu xanuunsan yahay isbitaal ayuu ku jiray ogaantii markii ugu dambeysay xanuunkan caalamka hadda culayska ku haya ayaa haya ilaahay ha ka caafiya ayaan leeyahay marka horta wafdiga jooga waa caynkaas wafdigan waxa weeye waxay isugu jira inkastoo ay yihiin dad qaran waa dad siyaasadda iyo matalaya dacwadda waa dadka milkiilayaasha dacwadda dhinaca soomaaliya ayaan ka mid ahay waxaan u joognaa waxa weeye in aan kiiskeena present garayno looyaradeena present garayno wixii su-aalaha ka soo baxa maxkamadda aan ka jawaabno ama aan ka tashano ee aan ka jawaabno annagoo halkana ku tashanayna caasimadeena iyo madaxtooyadeena la tashanayna in aan ka jawaabno in marba wixii soo baxa xaaladdu meeshay marayso aan ahaan wakiilka ka ah labada daraf soomaaliya laakiin dadka dacwadda hadlaya ee doodaya ee kiiska present garaynaya waa looyaro qareeno ajnabi ah qareen maraykan ah oo aad ugu xeel dheer dacwadaha gaar ahaan badda iyo maxkamadan dacwadaha ka dhaca muddo dheer ayuu dacwadahan ku jiray weligiina dacwad loogama guuleysan ilaa iyo hadda marka waa solid backgroundkiisu ama waa nin khibrad weyn u leh successfulna ku ahaa oo ku guuleystay mar walba dacwadda uu asagu galo xataa dacwad uga guuleystay dalkiisa maraykanka marka ay nicaragua isdacweeyeen oo ay isku dhaheen territory marka bad ah waxaan rabaa marka taas looyarada in aan uga soo gaabsado in looyaradu ay yihiin dadkii dacwaddan bilaabay sharikadii bilowday dacwaddan markii ugu horreysay loo dhiibay ee madaxweyne xasan sheekh uu dhiibay iyagii ayaa weli gacanta ku haya oo dacwadda wada marka labadaas qaybood ayaan nahay labada qaybood mid walba dhinaciisa ayuu u diyaar garoobay rehearsalna waa noo dhiman yahay iyo in aan wadajir u diyaar garowno haddii eeba yidhaahdo marka waxaan rabaa inaan si kooban u taabto qodobo dhowra waxaan qiyaasayaa ama ku talagalkaygu yahay walaalo soomaaliyeed oo dareen soomaaliyeed wado oo dalkooda daafacanaya in ay yihiin dadka aan la hadlayo waanan hubaa in aad sidaas tihiin marka waxaan aan ka hadlayo waa wax confidential ah qaarkood ay yihiin sida annagu aan u diyaar garownay ama aan u diyaar garoobayno waa wax aanay ahayn inay dibadda u baxaan waxaan rabaa inaan kaloo marka idiin taabto taas anoo dabagelaya kiis dacwad ah waa taqaanaan oo maxkamad yaalla aad loogama faalloodo dhinacyada qaarna lagama hadlo weliba haddaad tahay qofka dacwoonaya oo kaararkiisa ay u qarsoon yihiin wixii uu ku hadli lahaa iyo sida wax usoo bandhigi lahaa iyo meelaha uu ka doodayo inkastoo aniga qudhaydu aanan si buuxda ula wada socon sababtoo dacwaduhu looyarada gacanta ku haya dacwadda haddana inta aan ogahay xataa ma aha in aan banaanka soo wada dhigno kaararkeena sababtoo ah access ayaa laysu wada leeyahay wixii aad maanta ku hadashana waa waxa aad berri aad soo bandhigi lahayd oo lagaaga sii diyaargaroobayo marka taas waxaan jeclahay dooda in loo badiyo xilliga maxkamaddu ay dhacdo ama marba maalinta koowaad dhacdo wixii maanta laga yiri iyo doodooda waa laga hadli karaa maalinta labaad waa laga hadli karaa maalinta saddexaad waa laga hadli karaa laakiin dacwadii on bilaaban kaararkaaga inaad banaanka soo wada dhigto ma aha taas waa marka waxaan taa ka hadlaya dadka miidiyaha dadka labadiinan hadda platform oo kale waa nooc media ah
marka in aan wareysiyada dadka madaxdii hore iyo shakhsiyaadka ku jira dacwaddan midna in aan la badin wareysyada iyo qodqodka. mararka qaar waxaad arkaysaa madax hore oo kiisaskii dhacay ama MOU-dii ama ha ahaato dacwadda bilowgeedii ama libin sheeganaya ama wax iska difaacaya ama si uun oo aad ku arkaysa dacwaddii dhexdeeda iyadoo lasoo xigtay hadalladoodii oo la rabo in lagu garaaco Soomaaliya ama kiiskeeda lagu weeqo. marka taas laga taxadaro waa midda koowaad. midda labaad oo aan rabo in aan idin xusuusiyo aan hubana in qaar badan oo idin ka mid ah aad ku buuxdaan waxa weeye waxaan waa wax qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya ma ahan kaliya Soomaalida maanta nool ee Soomaalida mustaqbalku ay wax ku leedahay haddii ay beeraahdo. marka wiilal gabdho dhalinyaro ah ayaad u badan tihiin, caruurta aad dhali doontaan iyo kuwa ay dhali doonaan dhaxalkoodu way iyo wixii ay xaq u lahaayeen. marka waxaan dowlad maanta joogta ama dowlad shalay tagtay ama mid soo socota wax ay leeyihiin oo ku kooban maaha, waa waxaagi cidi kaama laha, adigaa leh, adigaa daafacanaya, adigaa ka dhowraya wixii wax u dhimi kara, adigaa ka dhowraya in shacabka ku kala qaybsamo oo qolo weeraraya qolo difaaca aan noqono. marka taasna in laga ilaaliyo Soomaalida kala qaybinta kala qoqobkeeda ama kala xigsashadeeda dacwada. aniga joog ah oo wafdiga ka mid ah kamana xigo qof kale oo Soomaaliya, mid og iyo mid aan ogeyn dacwadda anuu kama xigo, waa wax naga dhaxeeya. marka sidaas ayaan dowladda maanta joogtaa kaaga xigin baddaada. dacwaddana dacwad dowladdana leedahay ee madaxweyne Farmaajo leeyahay aysan u ahayn, ay u tahay dacwad Soomaaliyeed. marka in sidaas loo wada daafaco oo hadba dad joogta ayaa mas-uulka ah. madaxweyne xasan sheekh ayaa bilaabay oo dacwadda geeyey meeshana ay taalla maxkamadan. maantana waxaa wada oo khatar walba ka ilaalinaya oo dhisaya oo mas-uuliyaddeeda qaadaya waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. haddii doorashadu ka soo hormarto natiijada oo ay dhacdo uun si in haddana laysugu soo noqdo cidda mas-uuliyaddeeda wadaysa waa madaxweynihii la doorta, hadduu noqdo madaxweyne farmaajo ama uu noqdo mid kale. marka mar walba cidda u dhaarata ayaa mas-uuliyaddu ku dhacaysaa, laakiin waa wax naga wada dhexeeya oo aan wada leenahay. qodobka labaadna waan jeclaa in aan isla fahmno. midka saddexaad waxa weeye hadal kolley lama deynayo, waa laga hadlayaa dacwadda, waa laga hadlayaa taariikhdeeda, waa laga hadlayaa waxa socda, laakiin in si asluubaysana looga hadlo, factskana xaqiiqada in laga hadlo oo waxa jira iyo waxa la daafici karo iyo speculationka in la iska daayo, caayda in la iska daayo, cunsurnimada in la iska daayo. wax noo dan ah ma aha. waxa noo dan ah in dadkeenu ay informed ahaadaan, xog helaan, xogta ay helayaan sax ay tahay, runta ay ku salaysan tahay, sirteedana aanay bixinayn oo aanay qodqodaynin. marka anugu intaas ayaan hadda kusoo koobi lahaa. waxa si kale haddaan u dhigo oo arrimaha hadda meeshan ka socda haddaan idiin sheego, dacwaddu waxay bilaabanaysaa sida aad la socotaan 15 waxay ahayd inay dhammaato maalinta jimcaha, Monday to Friday inay ahaato, jimco ilaa isniin ilaa jimco. laakiin developments cusub oo hadda u dambeeyay waxay yihiin in lagu daray isniinta ku xigta iyo arbacada ku xigta in ay dhacayso. marka arbacadaas ay soo gabagaboobi doontaa, wiigga ay soo dhammaan lahayd dib ay uga dhacdo, wiigga ku xiga ayay soo gabagaboobaysaa, laakiin maalintii loogu talagalay ayay furmaysaa oo ah 15. aniguna shakhsiyan haddaan ku daro codkayga, looyaradaasna sidaa idii sheegay waa dad aan ku kalsoonahay khibradooda iyo aqoontooda iyo marka aan fiiriyey backgroundkooda, weliba backgroundka ay ku leeyihiin dacwadaha baddan, dacwadaha maxkamadan oo aan looga guulaysan ninka u sarreeya. dhanka kale markii la yidhaahdo tiimka hadda socdana, wada jirkeenna, wada tashigeenna, khibradeenna iyo taariikhdeenna, maxaa la yidhaahdaa iyo sida dowladda Soomaaliya ay uga go'an tahay tiimkan ay ula garab taagan tahay wixii markaas tasiilaad u baahan yahay iyo wada tashiga diyaarna loo yahay mar alla markii aan u baahano Muqdisho, iyaduna waa wax kalsooni ugu abuuraya. marka kiiskan horaan ula socday, waxaan ogaa Kenya markii koowaad ee la dacweeyey waxay ku dooday in aan Soomaaliya xaq u lahayn inay maxkamadda geyso dacwadda, sababtoo ah waxa labada dowladood ay tahay inay marka hore iyagu wada hadlaan oo ay heshiiyaan. marka maxkamaddu jurisdiction ama xaq uma laha inay dacwadda qaado
ha naga dhex baxdo dacwaddii marka dacwad bay gudbiyeen ay maxkamadda ku leeyihiin xaq uma leeyihiin kiiskanna soo gashaan hadda marka maxkamaddu preliminary hearing ayay samaysay sababta Kenya ku diidaysa inay caddayso Soomaaliya sababta u doonaysa maxkamaddu inay soo gashaan inay caddayso 4 maalmood ayaan meesha doodu ka socotay oo aan joogay maxkamaddan waana uga guulaysanay oo Soomaaliya ayaa guulaysatay oo waxa lagu khasbay Kenya dacwadda in maxkamaddu geyso ay soo diyaariso dacwaddeeda ay uga jawaabayso kiiska Soomaaliya taas waa looga soo guulaystay kiiskan hadda dhowr jeer dib u dhaco laakiin hadda wuxuu bilaabanayaa sidii kama dambaysta ahayd maalinta isniinta ah wuxuuna dhammaanayaa usbuuca ku xiga maalinta arbacada ah intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo waana diyaar ayaan u ahay su'aalo wixii aad weydiisaan intii marka aan ka jawaabi karo kuwa aan ka gaabsadana waxaan rajaynayaa inaan la iiga xumaan doonin annagoo danteena guud ilaashanayna waad mahadsantihiin aad iyo aad baa umahadsan tahay ambassador Yuusuf Garaad waxaan codsanaynaa su-aalaha maadaama markii hore waqtiga aad u adag ambassadorka oo daalan inaan 5 su'aalood kaliya qaadi doono su-aalahaas waxaan codsanaynaa inay noqdaan su-aalo ku saabsan dhinaca maxkamadda iyo sharciyada aysan noqonin su-aalo shakhsiyaad ku saabsan iyo su-aalo ku saabsan dowladda Kenya ee kiisku nagala dhexeeyo waxaan codsanayaa walaashay Mina iyo Shaksi iyo Deeq inay 5 qof ugu horeysa su-aalaha soo qaadaan waxaan siinayaa Meg Professor Jibril oo ah bari jaamacadda Ohio professor kusoo dhawow bismillahir rahmanir rahim